السلام عليكم maalin wanaagsan asxaabteena ku xiran channelka waa anigoo Mo ah oo idin wada maanta mar kale filin weyn oo aad loo wada sugayay filin booska oo filin taariikh ah oo loo diyaariyay sidii Bahubali filin actariin badan oo Southern Indian la isku keenay oo qiso hore ah filin laga maanguuriyay book linka gudagalin waxaan doonayaa inaan wax ka taabto qaabka aan filimaanta soo dhigo waa qaab linki ahaan waxaan soo geliyaa muuqaal yar oo ku sharaxaya filimka aan maanta soo dhigaya film oo ah film cusub muuqaalkaas dhammaadkiisana waxaan ku sharaxaa linkiga filimkaas oo dhameystiran oo Google Drive marka ku dhufato Google Drive ku geenaya filimka oo dhameystiran daawanaysa meesha aan soo geliyo dadkii hore ula socday way la socdaan intii nagu cusubna waxaa leeyahay qaabkaas aan filimaanta soo geliyaa ninkii su'aal qabo wuxuu weydiin karaa meesha commentiga filimka magaciisa filimka idiin haya maanta saydin sheegay waa film aad u weyn waa film blockbuster waa film laga manguuriyay book loo yaqaano Banyan Salfan oo ku soo baxay luqadda Tamil 1950 ilaa 1954 book socday oo maalin walba lagu soo qorayay journalka qayb isagoo dhameystiran book ahna 55 caadi soo baxay bookkaas ku soo baxay luqadda Tamil oo waxa loo yaqaan historical fiction taariikh hore oo laakiin been ah waxyaabo dhacay iyo waxyaabo aan dhicin oo qiyaal yar isku daray la sameeyay bookkaas ayaa laga manguuriyay filimkan ilaa hadda tan inta la ogyahay waxa la sameeyay laba part 1 kan hadda la soo daayay tan kale la balan qaaday 2023 dadka qaar waxay aaminsan part 3 inuu yeelan doono filimkan sidii Bahubali waxa la geliyay lacag badan oo 500 oo karoor lacagta India ah Banyan Salfan macnaheedu waa wiilkii boqorka ama wiilkii Banyan filimkan wuxuu soo baxay 3 September 2022 waxa la isku keenay actariin aad u badan oo Tamil ah director-ka Mani Ratman ninka loo yaqaano waxaa la geliyay lacag ku dhawaad 500 oo karoor ah laakiin loo yaqaano ilaa haddana wuxuu keenay 450 karoor kor oo noo sii socda waxaa maalgeliyay shirkado badan waxaa wada actariin badan oo reer Southern Indian ah Tamil iyo Telugu isugu jira waxaa horkacaya Vikram Jayam Ravi Karti Trisha Krishnan Aishwarya Rai Bachchan Prakash Raj Sharat Kumar Ratiban Ravi Lal Jaya Ram Abu Riyaz Khan Uri Ashwin Kumar Babu Arjun Jajaram Man Amraz Khan Dilvaj Jay Yusidaf Raji Saltaf Adish Bela Randeshpan Babu Anthony Ni Fadian Sabraman Vijay Kumar Chitra Sara Achun Aishwarya Lakshmi Ashwin Rayo Nazar Master Rakvan Sabita Dilabi actariin kale dhowr aan la xisaabin karin filin aad u weyn filin dadka taariikhda jecel ka helayaan dadka badankoodana ay ka helayaan 98% intii daawatay filimkan siyaabo kala duwan ayaa loo qiimeeyay Rotten Tomatoes waxa ku qiimeysay 91% IMDb waxa ku qiimeysay 8.2 kulligood ay ka dhigayaan blockbuster filimkii waxa ku qiimeysay 5.3 Telugu waxa ku qiimeysay 5.3 Aymo waxa ku qiimeysay 5.2 Indian Express waxa ku qiimeysay 5.4 Pinkfield waxa ku qiimeysay 5.3 dad badan sida u jeedaan waa ka wada heleen kana ka heli doontaan tuuga filimkan waxaa lagu sheegay dhamaadka filimka inuu soo bixi doono 2023 ay ku jiro xisuulayeen part 2 intiinaan aan daawanin ku soo dhawaada part 1kii halka aad ku soo koofaalada filimkaas filimka idin kormaro waa boqor iyo wiilashiisa oo geesiya ah iyo boqortooyadiisa iyo qaabka uu xukumo iyo dad badan oo doonaya inay boqortinimadiisa hoos u dhigaan maadaama isaga markii hore oo boqor ku noqday walaalkii oo boqortinimo ku wareejiyay laakiin walaalka wiilkiisa xaq u lahaa oo ahaan waay mid geesi ah waa qiso aad u dheer oo macaan dad iska qiyaanayo iyo sidii dadkii ka helay filimkii Bahubali waa filayna ka heli doonaan qisada isma laha laakiinse qaabkii iyo sidii maalgeliyay filimkan qaabka loo sameeyay waa isku mid iyo guriyihii Bahubali lagu suubiyay soo koofalfalada filimkan oo doonayna wax badan ka taabto linkiga filimka oo dhameystiran waxaan soo gelin doonaa daay 6 maalin ka hor meeshiisa muuqaalka hoose kan ka sii hooseeya ee saddexaad aan soo daayay 6 maalin ka hor ka ah halka ay kaga muuqato kartidiisa meeshiisa commentiga waxaan ku qorayaa filimka maanta qorayaan dhex gelin doonaa arbalaagis aan gelin doonaa linkiga waxaan raacaya pin commentiga oo linka ku jiro waxa ku ogaanaysaa waa kan u korayo oo aan pin soo dhahay ay ku qorantahay filimka maanta
mar labaad aan ku celiyo linkiga filimkan oo dhammaystiran oo HD Google Drive waxaan gelin doonaa muuqaalka saddexaad ee aan soo daayay 6 maalin ka hor ee hadda arkaysiin sawirka saarnaa muuqaalkaas meeshiisa commentiga waxaan ku qorayaa filimka maanta waxaan dhahayaa pin haddaan ku celiyo linkiga filimkan oo dhammaystiran oo HD oo Google Drive waxaan gelin doonaa muuqaalka saddexaad ee aan soo daayay 6 maalin ka hor meeshiisa commentiga waxaan ku qorayaa filimka maanta waxaan dhahayaa pin qofkii aan fahmin wuxuu ugu weydiin karaa meesha commentiga aniga u sharaxayo geena markale iyo maalin wanaagsan sidaas nabadgelyo enjoy the movie